Dhiig yaraanta ma laga yaabaa inaad isku aragtay dhiig yaraan? Waxaa dhici karta inaad mararka qaarkood qofku dareemo awood darro iyo tamar darro. Tani waxay ka dhigan tahay unugyada cas ee dhiigga inay qaadaan maadada loo yaqaan oksijiinta, sidoo kale waxay nafaqada gaarsiiyaan dhammaan unug kasta oo ka mid ah jirka. Haddii unugyadaasi ay yaraadaan ama hoos u dhac ku yimaado tiradooda, waxaa dhici karta in qofka ay la soo darsaan xanuuno. Mowduucan kooban waxaan kaga hadli doonaa siyaabaha dabiiciga ah loo daweeyo, isla markaana qofka uu gurigiisa joogo uu isaga daweyn karo. Dhowr cunto oo muhiim ah ayaa inta badan la tilmaamaa inay waxtar u leeyihiin, isla markaana lagu daweyn karo qofka uu gurigiisa jooga inuu markaa u adeegsado. Beetroot-ka waa nooc ka mid ah khudradda, isla markaana wuxuu qani ku yahay macdanta iron, taas oo qayb ka qaadata samaysanka hemoglobin oo muhiim u ah unugyada cas ee dhiigga. Waxay hoos u dhigi kartaa dhiig la'aanta ama anemiyada. Midhaha citrus isticmaalkooda joogtada ah waxaa laga helaa fitamiin C. Fitamiin C-ga ayaa horumaraya in laga hortago xaaladda kusoo boodada ee dhiig la'aanta ee loo yaqaan acute anemia. Fitamiin C-gu sidoo kale wuxuu ka caawiyaa unugyada cas ee dhiigga in la nuugo xaddi wax ku ool ah oo ah macdanta birta. Spinach wuxuu ka hortagaa dhiig la'aanta ay sababto yaraanta folic acid, tan oo ku yaraata unugyada cas ee dhiigga qulqulka dhiigga. Tanna waxay samaysaa ama sabab u noqotaa in hoos u dhacdo maadada hemoglobin oo loo baahan yahay marka laga hadlayo unugyada si loo gaarsiiyo unug kasta oo ka mid ah qofka jirkiisa tamarta iyo sidoo kale nafaqada. Xaaladdan caafimaad ayaa inta badan waxaa la sheegaa haddii qofku isticmaalo si joogto ah spinach-ka inay meesha ka saari karto caleentan cagaarani waxa loo yaqaano dhiig la'aanta, waxaana laga helaa uu qani ku yahay fitamiin B12 iyo folic acid. Isku darka labadan iyo sidoo kale noocyada kale ee nafaqooyinka laga helo waxay meesha ka saari karaan, isla markaana ay hoos u dhigi karaan dhiig la'aanta marka qofku dareemayo. Si joogto ah u isticmaal si meesha looga saaro ama aad isaga daweyso si dabiici ah dhiig la'aanta. Muuska wuxuu qani ku yahay oo ka buuxa nafaqooyin fitamiin C, folate, potassium iyo macdanta birta, mid kasta oo ka mid ah jirkaagu u baahan yahay si loo soo saaro unugyo casas oo markaa dhiigga. Sidoo kale wuxuu horumariyaa maadada loo yaqaan hemoglobin, xaddigeeda sidoo kale tayadeeda labadaba. Isticmaalka nooca cagaaran ee muuska ama sidoo kale kan bislaaday ee huruudda u eg waxay labadu qofka ka caawiyaan in la soo saaro xaddi macquul ah, isla markaana qofka jirkiisu u baahan yahay oo macdan ah, taas oo ka dhigan in markaas sare loo qaadi karo, isla markaana lagu hortagi karo waxa loo yaqaano anemiyada ama sidoo kale dhiig la'aanta. Isticmaal kuna dadaal muuska ama mooska. Timirta ama sabiibta. Timirta ama sabiibtu waa ilo qani ku ah fitamiin C iyo iron ama macdanta birta. Fitamiin C-gu wuxuu sare u qaadaa habdhiska difaaca ee jirka, sidoo kale wuxuu jirka ka caawiyaa in la nuugo xaddi wax ku ool ah oo ah macdanta birta ama iron. Tan waxay ka dhigan tahay in marka qofka si iskiis isaga daweyn karo dhiig yaraanta ama anemiyada isagoo gurigiisa jooga. Rumaanka ama pomegranate waxaa ku jira isku dhis dabiici ah, kuwan oo looga faa'iideysan karo in lagu daweeyo xaaladda yaraanshiyaha macdanta iron ee loo yaqaano iron deficiency anemia. Isku dhisyadaas waxaa ka mid ah anthocyanins, allecithanins iyo sidoo kale allergic acid. Isku dhisyadani waxay awood u leeyihiin in sare loo soo qaado macdanta iron, tan oo qayb ka qaadanaysa in la dhiso unugyo tayo leh, isla markaana tiro badan, kuwaas oo qayb ka qaadanaya in la gaarsiiyo maadada oksijiinta unug kasta oo ka mid ah noolaha. Isticmaalka sisinta. Sisinta waxaa ku badan macdanta iron, waxay qofka ka caawisaa gaar ahaan nooca loo yaqaano sisinta madow. Haddii qofku si joogto ah ugu daro cuntadiisa in sare loo qaado heerka hemoglobinta, taasoo muhiim u ah samayska unugyada cas ee dhiigga ee jirka. Marka intaa laga yimaado, sisintu waxay horumarisaa in si sax ah loo nuugo macdanta birta marka laga hadlayo habdhiska dheefshiidka. Daraasado dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo faa'iidooyinka gaarka ah ee sisinta marka noqoto ku daweynta dhiig la'aanta. Tan iyo kulan dambe oo ku mahadsantahay dhegeysigiina. Nabadgelyo.